shacabka ah ee xaafadahaasi degan kadib markii ay soo dul degeen ciidamada mucaaradka oo dhufaysyo halkaasi ka samaystay. dadka danyarta ayaa iskaga qulqulaya xaafadaha Siigaale iyo Dabka waxaana gabi ahaan xiran ganacsiga wadada Maka al-Mukarrama. qaar ka mid ah shacabkii barakacayay ayaa la hadlay telefishinka Somali Cable iyaga oo ka warbixiyay dhibaatada haysata. annaga waa qaxeena ilmahayga la socda waa xaafadeena ka barakacayna labada dhinac dagaalada waxaan rabnaa inay naga dhaafaan. annaga maatooyin aan nahay dagaalna ma galno labada dhinac waxa ugu baaqayna inay naga dhaafaan colaadda halkaas ka soo barakacdeen wax degmada Howlwadaag ما dadka xaafada dhan waa wax jooga malay dadka ilmooda way baxsadeen dadka badan way qaxeen laakiin anaga ma qaxin waa meel aadnaba ma haysana banaka waa meesha baabuurka bajaajka ala bajaajka maanta ila bakaara ku geynaysa $4 meel aad dad masaakiin aan nahay qax iyo waxasan noom fiicna dadku waxaan ku codsanayna qax naga joojiyaan ma qaxi karnaa anaka والله جيبي مقدشات ayuu ka casniyay waxaan ilaa shacabka loo turo dadka loo turo anaga ku ka waxaan ahay maati caruurley xaasley meel aan qaxnay meel aan ka qaxnay ma joogno marka aan dhiileen labada dhinac inay nabad noo fiiraan anaga buuq naxariisna loo fiiriyaan jecelnahay waxaan joognaa Siigaale xaafada leeyahay ayaan joognaa dadka ayaa qaxaya oo xaafadaha Soomaaliya meel buu qaxaya anaguna dad waxaan nahay baawrey aan nahay dadka anoo ayagoo dhaawac ma qadnay dadka ayagoo nool oo xayiyo oo artay diyaar ku reema artay qof walba asagoo walaasay ayaa qaadnaa meesha raamagina marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa iyo dad madaxda sharafta leh ee madaxweynaha iyo dadka mucaaradka waxaan leenahay dadkii waxa lagu jiraa qaxba lagu jiraa bil Ramadaan weeye dadka loo naxariisto madaxweyne farmaajo horta koow waxaan leeyahay in oo hadduu shaqay way meesha ka soo baxo ay dadkii ka hooseeyay baashi ku rogeen nimankaana waxaa leeyahay adigoo dawladda sare meesha taga dadkana qaxal laga daayo labaas qolob intaas ugu baaqaya dadka Muqdishona nabadda la ilaalshaale dawladda Soomaaliyeed aan dhisan dadka Soomaaliyeed shalay maanta nabad ay haayeen waxaan ogahay haddii hadda maanta madaxweyne farmaajo uu baxo in uu dagaalka inaan heshiihayn oo madaxweynuhu hadduu ka tago hadeertaan aan heshiihayn oo si dagaalamaysaan oo hogaamiye ku-xigeenka sidii camal u dagaalamaysaan oo dagaalka joojay oo hogaamiye ku-xigeenkii sidii camal isku qabsanaysaan oo madaxweyne hadda dadka aan isdeynayn waxaan ku baaqi lahaa inay mucaaradka dagaalka joojiyaan. ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka ayaa isku hor fadhiya xaafadaha Siigaale iyo Dabka waxaana kacsan xaaladaha goobahaasi.